goobtu waa Guguletu oo waayadan dambe ka mid noqotay goobaha lagu ugaarsado laguna weeraro ganacsatada Soomaaliyeed. waa dharaar cad dhalinyaro Soomaaliya oo da'yara oo dalkooda uga soo baxay inay caawiyaan familidooda ayaa dukaanka jooga. waxa soo weeraraya tuugo ku hubaysan AK47 kan ugu horeeya gudbayo iyaga ayuu ka mid yahay. waxa soo galayo sida aad aragtaanba tuug kale oo weyn oo AK47 ku hubaysan oo finaanada jaalaha xiran iyo midka kale ee koofida wata ee isna la soo baxaya bistoolada sida tooska aad u arki kartaan. waxa la maqlay rasaas waxa gebi ahaanba dukaanka ka baxaya macaamiishii ama customerkii ku jiray. dhalinyaradii Soomaaliyeed ee dukaanka joogay gadaal ayaa la soo geeyay. waxa goobta ka socda waa inay tiilka si toos ah u galeen oo ay soo baxsadeen wixii dhaqaale ah ee lacaga ee meesha ka dhawaa oo ay awoodeen inay gacanta ku qaataan. waxa la ii sheegay Allaha caafiye in dukaankan uu ku dhaawacmay mid ka mid ah dhalinyarada joogtay ee iyagoo iska ganacsanaya dharaar cad lagu weeraray. waxa kaloo soo galaya dukaanka aad aragtaan mid kale oo isna ku hubaysan AK47 kan sii baxay wuxuu qaaday tiilkii wixii uu gacanta ku qaadi karay ee midkii AK47 isna watay waa ay israaceen wadada ayay iska fiirinayaan si haleela ayayna dukaanka uga baxeen iyagoo aan wax gabashaha ku jirin qoryahoodana gacanta ku sito oo laafiyoonaya. dabcan waxay ahaayeen tuugo tiro badan oo banaanadana iska fiirinaya inay yihiin ama ay si ay u kontroolaan in deegaanka aanay wax boolis ah ama ciidan ah ku imaanin inta ay howlgalka ku jiraan. alxamdulillah waxa qasaaraha meesha ka dhacay Ilaahay ku koobay wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo iska ganacsanayay oo goobta ku dhaawacmay. waxa kaloo dadka deegaanka oo iyaguna sida aad hadda daawan doontaan ka war helay rasaasta dukaanka ka dhacday iyo weerarka loo geystay dhalinta Soomaaliyeed. waxay sameeyeen haweeneydaas bilaabaysa dukaanka ayay dhac booba iyo bilaloqo kula dhaqaaqeen. waana qayb ka mid ah falalka laga diiwaan geliyo Koonfur Afrika ee dhaca iyo boobka sida tooska ah loogu geysto ganacsatada Soomaaliyeed. dadku kala iimaan roone mid ka mid ah dadka dukaanka soo galaya ee dhaca iyo boobka wada ayaa 2 xabo moos kaliya qaadatay. dadna waxa ay awoodaan oo ay gacanta ku qaadi karaan ayay aruursanayaan iyagoo aan cidna ka baqaynin inaad waxba moodaa inay isku soo sheegeen oo qof walba qofka ka dambeeya ama dukaanka markuu ka sii baxayo qof kale u sii yeeray ayaad moodaa tiradooda iyo cadadda dadka deegaanka deganaa oo dhan oo hal mar dukaanka ku soo wada xoomay. dabcan dhalinyarada ama wiilasha Soomaaliyeed ee dukaanka joogay gadaal ayay ku wada urursan yihiin laga yaabay in lagu xiray albaabka marka ay ka sii baxayeen tuugada tiilka gashay. sida saxda ah South Africa sawirkan ayay leedahay. Ilaahay ha ku samata bixiyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walbo ay kaga sugan yihiin Koonfur Afrika. Guguletu waxa ay ku taalaa magaalo xeebeedka Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. waa tuulo isku rarana oo iyaduna ka mid ah tuulooyinka ugu halista badan marka la eego waayadan dambe. waxa ka dilaacay burcad si gaar ah u beegsanaya ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa kale ajaanibta ah. waxa la ii sheegay dukaankan inuu ka mid yahay 9 dukaan oo maalmihii la soo dhaafay talaadada ilaa iyo maantay oo Khamiis ah cagta la mariyay oo la galay oo la boobay isla markaana laga qaatay wixii dhaqaale ah ee dhawaa ee meesha u yeelay oo lacaga cash ahaa oo ay tuugada sida kan oo kale ay u wada weerareen. waxa midan ay ku soo aadaysaa xilli jaaliyada Soomaaliyeed ee Cape Town
oo aan isku duubnayn ilaa iminka ay u tafaxeedanayaan ama ay ku guda jiraan fadhigii ugu dambeeyay oo ay ku yeelanayaan hoggaan toos ah oo markaasi ka mid noqon doona jaaliyadaha Soomaaliyeed ee wadankani ama magaalooyinka kala duwan ka dhisan. hoggaankan waxa uu wax ka bedeli doonaa haddii la isku raaco weeyaan. waa haddii la isku raaco waxa uu wax ka bedeli doonaa wax walba oo khasaaraha ama dhibaato ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay la kulmaan. waayo haddii la helo hoggaan toosan waxa uu jaaliyad ahaan matali doonaa qof walba oo Soomaaliya oo wadankan ku nool. waxay sidoo kale la xiriiri doonaan ama ay xiriir toos ah la yeelan doonaan community-ga xaafadda.